wiil aabihiisa inta uu qabriga ugu daba tegay ka saxiixana weliba wixii hanti uu lahaa aabihiisa si uu dadku ugu sheego in hantidii iyo wixii aabihiis uu lahaa ee dhaxalka loo wada lahaa asaga in si gaara loo siiyey loona saxiixay. laakiin maxaa ku dhici doona arrintani marka uu samaynayo? bal ila daabo. waxaan kaa codsanayaa haddii muuqaalkani uu ku soo gaaro inaad like garayso siina share garayso muuqaalkani si uu u gaaro saaxiibo badan oo sida oo kale wanaagsan. haddii muuqaalkani uu ku soo gaaro xilli salaada ama salaad la joogo waxaan kaa codsanayaa inaad joojiso salaada aad soo dukato una soo noqoto muuqaalka daawashadiisa. goobtani waa goob lagu aasayo nin odaya oo geeriyooday. waxaa soo gaaray wiilkiisa oo ay ka muuqato weliba murugo badan iyo cabsi badan. wuxuu dadka u sheegay inuu aad ugu naxsan yahay oo aan la aasin aabihiisa, laakiin dadkii ayaa ka dhaadhicinaya ama u sheegaya in aabihiisa uu geeriyooday ayna mudan tahay in la aaso ama la duugo. laakiin intaas uguma harin. waxa uu soo galay qabrigii uu aabihiisa ku jiray si uu ugu saxiixdo warqado uu asaga horay u soo diyaarsaday oo ahayd in hantidii aabihiisa uu lahaa asaga lagu wareejiyey, aabihiisana uu asaga u saxiixay si uu dadka hadhow ula wadaago. bal si fiican u daawo muuqaalka ninkani iyo waxa uu samayn doono. waxa uu la soo baxayaa warqad uu horay u soo diyaarsaday ay ku qoran tahay in wixii dukumeenti ama wixii hanti ah oo odaygu uu leeyahay uu siiyey ama uu ku wareejiyey wiilkiisa una saxiixay weliba. bal ila fiiri waxa ku dhici doona asagana marka. waxaa bannaanka ka socota ducada loo duceynayo aabihiisa. intaas waxaa kala weynaaday in hantida aabihiisa uu ka soo saxiixdo. qofka hadduu iimaanka ka tago ama iimaankiisa daciif waa bis rajo damba ma lahan. laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu tusi doonaa ama wuxuu arki doonaa ninkani arrin aad u xanuun badan. inta uusan warqadda ka saxiixan aabihii wuxuu ka saaray suulka ayuu saaray qaddii loogu talagalay saxiixa ee la saari lahaa warqadda. laakiin intuusan saaran ka hor wuxuu bilaabay ninkii qunfac degdega ayaa ilaahay ku riday iyo xaalad kale. markani waa mar inta uusan aabihiisa geeriyoonin ka hor uu go'aan ku gaarayay in wixii hanti aabihiisa uu lahaa uu isaga sidaas farsamaysan uu ku wareegsado. أنا قدام العمر قدام المستقبل أنا عمري طويل السعيان لازم يتغطى لي أبي عليه. ninkii xaaladii ayaa ku sii xumaanaysa. halkii ayuu ku mir daboolmi doonaa isagoo qunfac badan neeftana ay ku ceshantay weliba. waxaa u yeeraya dadkii bannaanka joogay oo leh soo bax maxaa kugu dhacay. qofkood dadka bannaanka joogay ayaa gudaha u galay si uu u ogaado xaaladda ninka haysata. sababtoo ah markuu soo galayo waa la ogaa waana loo wada jeeday. laakiin isaga wuxuu muujinayaa dareen ah in aabihiisa geeridiisa uu ka naxsan yahay, uu la murugaysan yahay. waxaa la yaab iyo amakaa ku noqotay dadkii inay ugu tagaan ninkii oo miir daboolmay oo halkii ku dhacay isagana. dadkii ayaa isku sheegaya in ninkani uu ku jiro xaalad talisa. laakiin bannaanka markii loo soo saaro waxaa la soo saari doonaa ninkii uu meyda oo halkii ku geeriyooday. adduunyadu waa imtixaan. asagu waxa uu islahaa hantida ama dhaxalka aabbaha ka saxiixo si aysan kula wadaagin walaalaha kale. laakiin isagii ayaa qabrigii ugu daba yimid malagii halkii ayuuna ku nafwaayay ama ku dhintay. subxaan allah. wax badso wax beel ayay leedahay ayay soomaalidu tiraahdaa. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. muuqaalkani si ay dad badan ugu cibro qaataan sii sheer garay walaal oo gaarsii dadka kale.
فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم